fadda jaaliyadda Toronto ay ku taageerayso shirki ka dhacay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota magaalada Minneapolis oo hogaaminayay wasiir Khadar waxaan ku furan doonaa marka hore aayadaha Quraanka Kariimka sida caadada inoo ahayd waxaan u yeeri doonaa Cabdiwahaab si uu noogu ilaado kelmadaha aayadaha Quraanka بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم waxaan hadda ku soo dhaweyn doonaa sidoo kelmadii ku haboonayd oo raado gudoomiyaha jaaliyadda Maxamed Faarax uu nooga hadlo wax qabadkii dawlad deegaanka uu qabsoomay iyo waxa kale si aan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda DDSI Toronto Canada iyo magaca dawlad deegaanka uu hogaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan caawa aad idinku mahad celinayaa kulankan ballaaran ee jaaliyadda DDSI Toronto ku qabsatay madashan quruxda badan taasoo ku taageerayno habgeedi socodka nabadeed ee ay hogaaminayaan wasiirada inooga yimid North America inooga yimid dawlad deegaankii oo ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin macnihii horumarka iyo ballaaran iyo nabadeynta ay soo gudbiyeen ay soo gaarsiiyeen North America waxaan kaloon aad ugu mahad celinayaa dhammaantood wasiirada anigoo ku soo koobi karin halkan magacyadooda ma idin dhammayn karo ama ma idin sheegayo hadda horumarka uu waddanku ku tallaabsaday ama meelaha uu marayo in dad yar oo waxgarad mangaabi ay nalka inoo baxay inaga damiyaana waxaanu aad baan uga soo horjeednaa waxaanu aad u taageersanahay wasiirada North America yimid noogu yimid habgeedi socodka nabadeed waanu taageero buuxda ayaan u haynaa anagoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Toronto Canada jaaliyadda Toronto Canada yes Mohammed anagu kaliya waxaanu ka amar qaadanaa ama aanu ayidsannahay madaxweynahayaga Cabdi Maxamuud Cumar iyo oday dhaqameedyadayada ha ahaadaan garaad kulmiye garaad Maxamed Suldaan Cabdiraxmaan Bade iyo Suldaan Maxamed Suldaan Buseeri macnii taageero buuxdana waanu haynaa iyagana hadalka waanu ku ajiibnaa laakiin cid kale oo hor istaagi karta oo macnii meelaha ama ka qayliya ama waxyaabo kale oo de mucaaradnimo la yimaada anagu waan ka soo horjeednaa mana taageerayno dawladdeedana waxaanu taageero buuxda u haynaa meel walba aanu joogno wafdiga balaadhana waxaanu aad uga mahad celinaynaa macnii socdaalka
geedi socodka ay nabadeed ay noogu yimaadeen annagoo hiil iyo hooba la garab taagan hadalkayga wax badan idinku dheerayn maayo dad badan baa iga dambeeya oo iyaguna hadli doona laakiin anigu waxaan taagannahay ama jaaliyadda ay taagan tahay meel walba oon joogno inaanu hiil iyo hooba la garab taagannahay waxaanan halkan fariin uga farayaa caruurta yaryar ee nimankan qowlaysatadii ay maskaxda ka bedeleen waryaan maskaxda laydinka bedelin ee dowladdiina iyo horumarkaa la arkayo nalkaa maanta inoo ifay jidadka aan haysanno nimcadaan haysanno biyaha meel walba inoo qulqulaya war ha la ogaado wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaddu iyadoo ka mid ah astaanta nolosha haddana waxaan ku soo dhoweynaynaa guddoomiyaha wakiilka xisbiga ee Canada gaar ahaan magaalada Toronto oo ah xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia ahna xisbiga gaarsiiyay horumarka ballaaran meel walba yaala waa guddoomiyuhu waa Shamsaan Dayib waad mahadsantihiin assalaamu calaykum salaanta islaamka nagu salaamaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay ee danaynaysa deegaankooga waxaan aad ugu mahad celinayaa xubnaha jahliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Toronto Canada walaalayaal deegaankeenna aan ka soo jeedno deegaanka aan ka soo jeedno waa deegaan aad u ballaaran 30 qabiil in ka badan ay degto waa deegaan aan wada leenahay oo aan shakhsi lahayn hal qabiilna uuna lahayn walaalayaal waxaan caawa iskugu nimid jaaliyadani mudday soo socotay sanad baan wadnay marmar 2 qof ama 3 qof baan shir ku galnaa waan soo jiitamaynay isla markaana haddii hal qof aan nahay iyo haddaan 3 qof nahay mowqifkaygu waxa weeyaan in mar walba aan u soo jeedno horumarka deegaankeenna maamulka suuban iyo madaxweynaheena daacadda Cabdi Maxamed Cumar waxaynu leenahay garaado ugaasyo caaqilo oo mar walba garab taagan dawladuna go'aan ma gaadho ilaa ay la tashato marka haddii aan dib u eego sanad ka hor 2000 oo qurba jooga ayaa waxay iskugu timid dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan ahaa dadkii la yidhi waxaad raacdiin guddoomiyaha jahliyadda dowlad deegaanka Ethiopia ee North America Minnesota Maxamed Bade markaan raacnay wasiirka gaadiidka iyo wasiirka gaadiidka Khadar Cabdi Ismaaciil oo caana ka dhan ka tirsan markii uu noo yimid isaga shir guddoominayay wuxuu yidhi aniguna waxa aan raacayaa guddoomiyaha jahliyadda North America maanta waxay noqotay in la yiraahdo ninkii waba magafe oo wada kalu maray ama hal qabiil buu ku soo biyo shubtay wax loo dul qaadan karana maaha wadankani waa wadan aan wada leenahay waxaan soo dhaweynaynaa wasiiradayada sharafta leh Maajida Maxamed wasiir Khadar Cabdi Ismaaciil wasiir Cabdi Mahad Dombe oo wada garanaysiin oo in badan la soo dadaalay qurba joogta xafiiskeeda oo qayb weyn ka soo qaatay oo yani shaqooyin badan qabtay marka walaalayaal anigoo aan ku dheeraanaynin wax qabadka dawladdeenu ay qabatay waxyaabaha aan marnaba indhaha laga qabsan karin waxa kamid ah qofka qurba joogtu marka uu tago deegaanka fiisada iga dhacday
maxaa yeelay muddadii dadkeennu ay qaxootiga ahaayeen milyan ka badan baa waxay ku dhasheen waddamo kale marka hadduuna qofkii etoobiyaan ayna ugu qornayn waa viisu rabaa marka waxaa jira kaar deganaansho ah oo 5 sano ah madaxweyne cabdi maxamuud cumar federaalka ayuu hordhigay in dadka qurba joogta ah maadaama horumar laga hadlayo inay ka qayb qaataan waxaa loo oggolaaday qofka uu meel kale ugu qoran yahay in la yidhaahdo ha la caddeeyo inuu dhashay la siiyo markaa kaarka haddaynu qurba joognahay qof markaanu yeedhnayno waxaan qabanaynaa shir waxaa la yidhaahdaa ma waxbaa laynii soo diray annaku mar walba waxaan ku xisaabtamaanaa wixii annagu aan hayno mar walbana waxaan halkan ka caddaynayaa 2 qof haddaan helno iyo 3 qof haddaan helno oo danaynaysa danta jaaliyadda dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya iyo xisbiga hogaankaya waan wadaynaa haddaan hal mid ka idhaahdo ciidamada new booliska waa ciidamada new boolisku nabadgelyada waddanka in hooyooyinkeen nabadgelyo ay ku seexdaan maanta keenay mar walba qofka dan kale leh wuxuu yidhaahdaa waxaa la laayay new bolis sida Oromia oo dad shacaba ku maaday haddaan nahay annaku DDSI September dadkeeni waka wax talaaba oo annagu aan ka qaadi karnaa ma jirto laakiin waxa aan sameynay intii karaankayaga haddaan nahay jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Toronto in aan ku dhajino qof wal oo mucaarida oo ka tirsan Oromia mucaaridiinta meelhooga cid nagu caawisay ma jirto ciddii markaa nimanka dadkeennii saa u galay maanta taageera waxay nooga daran yihiin dadkan dhaqan baynu leenahay garaadaynu leenahay suldaanaynu leenahay suldaankaygu waa cabdiraxmaan bade suldaan cabdi garaadkaygu waa garaad kulmiya garaad maxamed caaqilkaygu waa caaqil cabdikariin qalle wax inta ay yidhaahdaan ayaa madaxweynuhuna dhegaystaa degaankuna dhegaystaa annakuna aan dhegaysanaynaa ka hor iman mayno wax walo inoogu taliyaan marka walaalayaal waad mahadsantihiin anoon ku dheeraanayn waan ii mahad celinayaa assalaamu calaykum aad buu u mahadsan yahay wakiilka xisbiga hadalka wanaagsanaa uu ka jeediyey haddana waxaan u yeedhi doonaa guddoomiye ku-xigeenka Fadxiyo Kaahin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرويني مضيال دلين يوايل هاوين يرق دمان انتين قوبتنا سكو كنتي مدي آديات بايد السلامية هدان سكين برا مقاعي فتحي عمر كاهن as usual last name كون باقادنا يو كاهن هو last name كيوي لكن مقاعي قفلكي وفتحي عمر كاهن هورت waxaan aad ugu mahadnaqayaa qabaqaabiyaasha soo qabaqaabiya meesha quruxda badan iyo habeynta la isku soo dubariday intii mas'uuliyadeeda lahaydna waxaan leeyahay ilaahay ka jisaysiyo waa sanad cusub oo way cusub wata waa la hadlay looma hadlo waa la hadlay dadku intii badan way yiraahdeen waxay odhan lahaayeen kaliya waxaan ku darayaa waxaanu joognaa 2018 sanad cusub ay noo bilaamay meel walaynu joogno mucaarad ahaan mayno wixii la qaadana la qaadici maayo hadduu qof maanta koobkaa kor u qaado waan qaadacaynaa hadduu qof idhaa waxbaan hagaajinaa waan qaadacaynaa hadduu qof haydeen horaan u soconana waan qaadacaynaa aslongaas aan aniga lugteeda ku xidhnay waxaan u baahannahay markaa hadda dhammaan jaaliyadiina Soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii Itoobiya tahay hadday Soomaaliya tahay hadday Canada tahay hadday North America tahay meesha doontaanba jooga Soomaaliya waxay u baahan tahay dhammaan inay soo ogaano
halkii cagteenu dhigmaysan aan ogaano haddaynu sanadkaa maanta ka gudbin weyno mucaaridnimo nafteenaan mucaaridaynaa horumarkeenaan mucaaridaynaa shakhsiyadeedaan mucaaridaynaa jasiyadeenaan mucaaridaynaa diinteenaan mucaaridaynaa wax walba mucaarid baynu ku nahay waan qaadaceen ka gudubno aanu gudubno waan hore u maray horaan u socday tallaabo cusub baan qaaday ummaddaan la jaan qaadayaa dadkaan wax la qaybsanayaa ummaddaa islaameed iyo dee gaalba leh adduunka daafiisa ku kula nool damaca yeesheen baan yeelanayaa ayaa damaca markaa hirgelin karaa waxaa hirgelin kara hoggaanka dooratay hoggaankaaga waxaa lagaaga baahan yahay mar walba sida diinteennu bay noogu sheegtay horta bal inaad waqtigiisana siiso ixtiraamto tallaabadiisa iyo wuxuu qaadayo haddii waa bili-aadan uu yani wax dhiilmaan oo dhinac wax u dhacaan dadka inay tiiriyaan ee asturaan positionka inay buuxiyaan loo baahan yahay waa inaga wayaan halkan aan joogno maanta magaalada Toronto waxaan abuurnay last year somehow December 2017 ayaan ururkan abuurnay it was a struggle it was not easy ma oran karo waa dhib yarayd aad iyo aad buu adkayd ilaa maantana wali waan soconaa insha Allah bidna karina maalin waxa la gaari doonaa la soo wada harka la soo wada dugsado oo la soo wada hoos galo waxaan idinka wada codsanayaa dhamaantiin intiin halkan joogtay inta maqan bayna isgaarsiisaan kana soo qayb gashaan hawshana dhinaceeda aad ka soo gashaan nala taageersan haddii alla ka dhigo waxaan maxay hayday si gaar ah anigu horta anigu mahadnaqayaa maamulka madaxweynihiisa oo u horseeday ummadan horseed iyo nabad iyo barwaaqo waana la garab joogsanaynaa anagu intii awoodeyna haddaan qurba joognahay wixii taageera dalkeena iyo dadkeenaba ku taageerayno aqoon hadday noqoto hadday dhaqaale noqoto whatever wixii awoodeyna ah in wax kaga bedeli karno wanaaga xagga wanaagaan u dhaqaaqayna waynu ka bedeli doonaa insha Allah bidnaahi kariim qof walba wax walba bilaabayaba qof baa bilowgeeda leh qofkaasi astaanta taariikhda ayuu ku suntan yahay anagu haddaan reer Toronto nahay astaanta taariikhda waxaa igu suntan khadra meed halkii joogta khadra ayaa astaanta taariikhda igu suntan iyo sucaad caymad without labadooda la-aanteed waxba ma hirgaleen waxna ma qabsoomin marka aanu isjeclaano aanu isdhiirin gelino keena wax qabtana aynu hore u socodsiino garab joogsano taageerno mucaaradana aan yareeno 2018 haynoo noqdo sanad cusub oo horumar iyo nabad iyo barwaaqo wata madaxweynaheena waxaan leenahay isaga adiga laftarkaagu madan madaxweyne ummadaada iyo dadkaaga way ku jecel yihiin dulqaadkeeda yeelo samirkeedana yeelo dhagaha iyo indhuhuna ha furnaadaan inteeda qurba jooga kolley waxaan halkan u joognaa waxa weeyaan isbedel inaan keeno maaha iska soco uno teer walkii wixii yaalay ku dabaq adiguna maaha micnaheedu waxa laynooga baahan yahay qurba joog hadaynu nahay inaan la nimaadno waji cusub waaye cusub iyo wax cusub maxaan ku keeni karnaa marka inagoona xagran baan ku keeni karnaa aqoontiina fidinaan ku keeni karnaa maskaxdeena oo furan iyo calooshiina wanaagsan baan ku keeni karnaa marka inta adigana mudan madaxweynaha kula garab joognaa adna waxa lagaaga baahan yahay dadkaaga iyo dalkaaga bas aad iminka u horseedeed ugu hor socoto inaad ugu hor socoto samirkeeda iyo dulqaadkeedana aad yeelato jaaliyada reer Torontona dee wanaagii sharaf baa leedinku yaqaanayo waxaad wadaan hore wadaan idinkuna kasoo qayb galo gacanta soo qabtay dadkiina iyo dalkiina waanad mahadsantiin asalaamu calaykum ilaahay kaa jisaysiiyo hadda waxaan ku soo dhaweynaynaa xubin ka tirsan xubnaha jaaliyada DDS ugu firfircoon ahna dhakhaatiirta berika maalin deegaanka ku noqon doonta daweyn doonta dadkeenii Dr. Cabdiraxmaan Cumar marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa walaalahay xakan igu soo caasumadeeyey iyo dadkii soo qabaqaabiyey sida Fatxiya Cumar ay uga dhawaajisay barnaamijkan caawa xakan aad ku lagu qabaqaabiyey waxaan aad ugu farxsan dadka walaalahay muxuu ahaa degan Ethiopia inaan ka mid noqdo weligii Ethiopia maan tegin anigu reer Djibouti baan ahay Djibouti baan ku dhashay anigoo yar baan ka tegay Djibouti 17 jir oo Faransiiska waxbarasho u tagay sanadii bar baan ku soo noqday inaan wadankayga wax u qabto sanadii ka bar ka bacdina waa laga soo eriyay waxaan ku soo baxsaday Canada hadda 30 sanadood baan ku dhawahay inaan joogo Canada wax ku bartay
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waddankani soo dhaweeyey marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsan dadkii walaalahay ee Ethiopia inaan caawa halkan aan barnaamijkooga ku noqdo marti sharafeed ay ugu soo casuumadayaan aan laba kelmadoodna aan idhaahdo waxaan rabaa inaan la qaybtamo walaashay Sucaad waxay ugu tiri ka hadal wixii ku saabsan knowledge-ka marka waxaan rabaa inaan in yar intaan idhaahdo cilmigu waxa weeye markay ilaahay abuurayay nabi aadam calayhi salaam malaa'igtu way su'aaleen oona caadiyan aan su'aalin ilaahay waxay yidhaahdeen ma waxaad abuuraysaa bini aadan oo aad siinaysaa wadda intaa leeg oo dhiig qubi kara ilaahay wuxuu ku jawaabay subxaana wa tacaala waa run dhiig wuu qubi karaa laakiin wax kalaan siiyey uu kaga badbaadi karo waa cilmiga marka malaa'igta ayuu ilaahay ku yidhi magacaaba waxaas way magacaabi kari waayeen waxay yidhahdeen waxaad ugaadna bartay anagu sheegi karnaa nebi aadan buu weydiiyey uu ku yidhi magacaaw nebi aadan wuu magacaabay wuxuu ku magacaabayna wax kale maahan waa cilmiga cilmigu waa muhiim cilmigu maaha inuu keliya jaamacadda waxa laga barto jaamacadda maanta 2018 aan naqaanaayey anigu shakhsi ahaanteed okay jaamacadda maanta anigu haddaan fikirkayga ka dhiibto waa jaamacad gaftay mas-uuliyaddeedii jaamacaddu waxa weeye meel ummadda dhista shakhsiyadeedana dhista laakiin maanta jaamacaddu waxay noqotay meel private cilmigii wuxuu noqday cilmi private ayuu noqday qof aan lacag aan haysani wax ma baran karo jaamacad ma geli karo college ma geli karo waxaan rajeynayaa dhulkaas Soomaalida ee kiilka shanaad Soomaa ya inay bilaash tahay bilaashkaana kuwad waa muhiim waayo maalintay cilmigu uu noqdo private kuwi jeebkoogu ladan yahay un baa geli kara taasina waxay keeni doontaa waxa la yiraahdo fasakhaad ayay keeni kartaa aan maanta aan ku jirno waayo anu jaamacada markaan tago iyo markaan dadka jaamacada dood aan la gelayo aad iyo aad baan ma ogtahay aan bilaadmadeeda xitaa maxaa ku dambeysay maalin waxaa jirtay dood aan la galay nin gabadh psychologist and sociolog iyo nin kale jaamacada Ottawa ka director oo iyo aniga marka TV show bay ahayd wayna la doodaysay dhibaato doodana waxay ahayd sidee xal loo keenaa conflict looga baxaa anigana kale waxaan ka abaaranay shakhsiyadda horta waa in la daweeyaa shakhsiyaddu markay daweysan tahay ee conflictkii kula jirto iyada iskula jirto sida Fadxiye sheegay Fadxiye Cumar sheegay ay lahayd inaga mucaarid isku noqonayna bila aadanka markuu isagu mucaarid isku noqdo waa khalkhal bay gashaa marka sanaysa ya bulsho xanuunsanaysa dhashaa marka shakhsiyadda waa in la dabiibo waa in la daweeyo shaqadeeduna waxa weeye magaan 10 sano ugu dambeeyaan xoog saara aanu ku shaqeystay waxa weeyaan sidii shakhsiyadda loo dabiib lahaa marka shakhsiyaddu markay khasho dhibaatada bay keentay bulsho khashan bay keentaa marka waxaan ka wadaa gabadhii dooda nala gelaysay TV-ga showga oo diiday inay ka abaarto shakhsiyadda markii TV-ga la xiray ayay gaar ahaan aniga iyo gabadhii kale showga qabqaabinaysay nagu tiri waan ugu raaxsanahay fikirkiina laakiin waxaan ka baqayaa haddaan public ka idhaahdo inay dhibaato iga timaado jaamacaddayda waayo haddaan ahay sociologiga dadka la idhahdo waa inay ka abaaraan waxaa la idhahdo bulshada iyo inay shakhsiyadda ka hadal marka cilmigii dhinac walba waa laga daldalooliyey marka waxaan ugu dhiirigelinayaa cilmiga bilaashka ee dadka walaalahayn ay ku haystaan sidaa ku wada cilmiguna maahin ka jaamacadda waxaa lagu barayaa keliya qalinka sidaad qabsan lahayd iyo sidaad wax u baari lahayd unbaa lagu barayaa laakiin waa marka jaamacadda ka soo baxdid ayaa lagu weydiinayaa cilmigaaga waxaad ku camal fashay ilaahayna kula xisaabtamaya marka nabadgelyadu waa muhiim meel walba la joogaba Soomaalidu maanta 30 sanadood qurbaha joogaan ka qaxooti waxaan ku imid marka nabad waa muhiim meeshii la joogo waxa muhiim in nabad lagu dadaalo waxaan dadka walaalahay aan ugu duceynay nabadaas Ilaahay ku warajiyo mid kale adduunka maanta walaalahay xalad wala shirban yar dhageysanayay aan markaan mid halkan oo briefing lagu siiyay comment baan ka bixiyay mar dhexdeed gabadha walaashay Fadxiye Cumar wala joognay waxaan iri Soomaalidu maanta waxay u fikiraysaa si loo kala u fikirnaa laakiin waa inaan si global loo fikirnaa waayo Ilaahay markuu nabi aadan abuurayay wuxuu uga dhigay khaliif adduunka ninka maanta kiilka shanaad mas'uulka adduunka dhan mas'uulka yahay ninka maanta Ottawa jooga ee kamida xusbiga DDSI waa nin adduunka kale Ilaahay uga dhigay mas'uul
marka shakhsiyada yaan la dhageysan yaan la dhaleeysan waxaan u rajeynayaa ilaahay inuu naga dhigo shakhsiyad caafimaad qabta meesha joogto iftiinka gaarsiisa iftiinkaasoo iftiin caafimaad qaba maanta dad badan baa isku soo dirdiraya dhowr wiigi ugu dambeeyey iftiinkii waxaan ku siinayaa 2018 ya de iftiinkaasi waxaan jecelahay inuu dhab noqdo ya iftiinkuna wuxuu ka bilaabmaa indhaha maahan waa qalbiga haddaan muslim aan nahay waxaan aaminsanahay qalbigu waa nuur qalbi nadiifi wuxuu hagaa indhaha maskaxda ayay hagtaa laakiin qalbigu markuu wasakoobo jirkoo dhan wuu mukhasakhoobaa siduu nebigu yidhi xadiisku yidhi qayb waxaa ka mid jirka markay xanuunsato jirkoo dhan wada xanuunsato miyaan nii sheegaa haabay asxaabtii ku yidhahdeen wuxuu ku yidhi waa qalbiga sidii weliba aad u badbaadin lahaydna maa nii sheegaa buu ku yidhi haa dhexdiina is soo booqda oo salaanta isgaadhsiiya maanta halkaan isugu niman waa boqoshaan soo boqonnay aan isku taageerno walaalo haddaan nahay afka soomaaliga wadaaga diin wadaaga inaan isku helino weliba isku helino si xaqa jazaka allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan hadda u yeeri doonaa xogayaha jaaliyadda maxamed ayax السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبوا باكران وملاينا رير تورنتو طبعا هانو أفر سنة دلك جوجو وسنة كيجو قبوا واو مركا هدي عود كيجو أما مغال كيجو سليمو على جرح على النقطة مركا وقول رئيس سبحانه محد علينا يا الله سبحانه وتعالى هل كان سكو كاني مركا اللي بعدنا وحنا محد علينا يا دتكي كسر شقي حفلة قروح ضبطنا عاو إنكو كلنا intaas kadib waxaan sidoo kale salaamahayaa gudoomiyaha jaaliyadda mudane maxamed faarax iyo ku-xigeenka marwo fadxa kaahin anigana dabcan waa laydiin baraan u malaynayo xoghaynta jaaliyadda baan ahay iyo wakiilka xisbiga shamsudiin ama shamsaan waxaan rabaa dabcan inaan aniguna kelimadayda halkan ka dhaho inaan taageersannahay hanaanka nabadda geedi socodka dowladda deegaanka Soomaalidu ay maaragtay ku tilaabsatay hadda la wado baryahan waxa iska jiray dabcan dadka Soomaalida waxay runtii caadaysteen waayaha kan in baalkan YouTube-ka la dhaha dib badan ugu haya qof kastoo hadla YouTube-ka wax la iska soo geliyaa dabcan qurbuhu wuxuu noqday meelaha wax laga shishido marka kollay waxaan u malaynayaa qorax muuqata saacabadu ma qarin karaan aniga da'da aan jiro iyo dawladda deegaanka Soomaalida dhulkaas kililka shanaad loo yaqaano ama dawladda deegaanka Soomaalida maanta ku magacaaban dadka degan 70% dadkiisu ama waxay wax ku barteen ama ku dhasheen dhulka walaalaheena jamhuuriyadda Soomaaliya intii gacanta adag ee mingista Xayla Maryan iyo kuwii ka horeeyay ku jirtay marka dabcan waxaan ka wadaa anu shakhsiyan waxaan ku dhashay jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin xuduntaydi iyo deegaankaygii iyo dhulkayga waxa weeyaan waa dawladda deegaanka Soomaalida marka waxaan ka wadaa annaga marka xamar ka soo qaxnay Kismaayo nimi waxaan tagnay Doolow goday baan lagu soo dhaweeyay caana iyo oodkac baan lagu soo dhaweeyay waa gudubna deegaankayga aniga waa wardheer iyo galaadi halkaas aan ka degay waxaan ka wadaa dhulkaas sidoo ahaan jiray iyo maanta sidoo uu yahay farq weyn baa u dhaxeeya maanta galaadi iyo wardheer waxay leedahay telefoonay leedahay mobile leedahay WhatsApp-ka dadka naga wareeriyeen waxaas ma jirin biyaa la helay waxbarasho la helay ilaa 2 milyan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaanka u dhalata maanta wax barata dhulka dawladda deegaanka Soomaalidu wuxuu ku calaamadsan yahay waa dhulka kaliya oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro hogaamiso waa meel kasta oday baa soo xirtay Soomaaliinteedii kale laakiin ka bilow madaxweynaha ilaa iyo heer wasiir waa dhalinyaro waa marka waxa fiican inaan ugu hambalyeeno waxa wanaagsan ay qabteen dabcan wax badan baa dhiman Soomaalidu waxay tiraahdaa adduunku waa 19 ma noqdo guri baad raadinaysaa gaari baad raadinaysaa gabar cad baad raadinaysaa awlaad baa wali waa baahanta aadan qabriga un baa buuxiya marka deegaankeena horumar badanna wuu gaaray horumar badanna uu u dhiman yahay inuu gaaro hadii Ilaahay idmo laakiin maxaa lagu gaari karaa wax naga dhiman aynagoo dawladeena iyo shacabkeenu gacmaha isqabsadaan oo hoggaanka la taageero waadiicu Allah waadiicu rasuulah wa ulul amri minkum in dadka idin hogaamiya loo duceeyo Soomaalidu ma yaqaanaan in loo duceeyo dadka hogaamiyaasha anigu laba dalan wax ku soo bartay Malaysia iyo Turkiga qodbada jimcada wadaadku ma furi karo asagoon madaxweynaha u duceeyay waa inuu madaxweynaha ducada ka bilaaba waa inuu dalka u duceeyaa shacabka u duceeyaa Soomaalida ma arkayso waxa arkaysa Suuriya loo qunuudahay Afghanistan
waxaynu ilaa waayeen deegaankooda oo dhibaatadu ay ka jirto marka waxaa fiican inaynu anagu gudaha isu fiirino oo dowladeenna u duceyno madaxdeenna u duceyno waxa ka khaldanna Allah baa saxaya subxaanahu wa ta'ala marka anigu shakhsiyan anoo ku hadlaya magaca xoghaynta jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida waan hambaleynayaa madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo dowladdiisu qaabka ay wax ku wadaan iyo hanaanka nabadgelyada cid kasta oo wax tabanaysana dowlad iyo baarlamaan baa dalka ka jira waa inay baarlamaankeeda iyo dowladeeda ay ku ekaato shakhsigii siyaasad iyo inuu bari ka maalin dalka maamulo rabana waqtigeeda ha sugo qof kasta waqti buu leeyahay deegaanku waa naga badan yahay waa dhul weyn 7 milyan oo Soomaaliya ku nool dhulkan hadda qowmiyadan walaalaheena dariska nahay Oromada ilaa 1400 kilomitir xuduudan leenahay dhulka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalidu waa dhul aad u weyn ka soo bilow xuduudda Djibouti ilaa iyo Moyale Kenya waa dhul aad u weyn wuxuu ka weyn yahay Europe wadamo badan UK Netherlands waxa tiraahdaa dhul badan ka weyn 400 kilomitir isku weer waay marka waa naga badan yahay haddii loo samro Soomaaliya oo dhan buu deeqa waana dhul haatan Soomaali inteedii kale xataa u ayday oo deegaanada Somaliland dhulkan waqooyi galbeed Soomaaliya Puntland scholarship la siiya ilaa iyo Hiiraan dadkeeda jigjigay wax ka dhigtaan ilaa Qarbidaar free jaamacada ay ku dhigtaan marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga haddaanu nahay jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan cariga Canada khaasatan Toronto waxaanu ayidsanahay taageersanahayna hanaanka geedi socodka nabadda ee dowladdu ay wado iyo si kasta oo ay dowladdu wax ku qabanayso geesta kale waxaan rabnaa inaan baaq u dirno madaxweynaha waxaa jiri jirtay 6 sano muddo hadda 5 sano intii la doortay bilow waayihii la doortay 2010kii 2010kii wuxuu safar ku mari jiray caalamka oo dhan runtii safaradaas guulo waaweyn buu madaxweynuhu ka soo hooyiyay in waxyaalihii kacdoonkii iyo waxyaalihii deegaanka dad qaarkii ay wadeen in la soo afjaro oo huuhahdii meesha ka baxdo oo madaxdii iyo shacabka is arkaan oo madaxweynuhu ka shaafiyo qof kasta marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa annaga reer Canada wali Canada muu imaan inuu noo yimaado safaradii qurba joogtana uu bilaabo oo qurbaha laftirkeeda uu soo maro billahi tawfiiq assalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay xogayaha jaaliyaddu haddana waxaan u yeeri doonaa xubin naga soo booqday waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia Fuad Cabdiraxmaan Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وأد باندين سلامي مرت شرفته كسوق كش حفلة أد يدو ما تنتين إن هذيكم ارتقادان مانتا إن حفلة أو أنا ذيك لا قيب كلام لكن سؤال بانقبا 1991 بل أنت شرتي فرت تاك بريجا أوكي هذا بتحس واحد إن أنتو سيسا in dad badan oo aan reality-ga ogeyni inay jiraan intaanan hadalkayga bilaabin waxaan idinka yar sheekaynayaa sheeko markaynu ka soo qaxnay xamar waxaan ka soo galay Ethiopia meesha la yiraahdo Moyale markaa waxaa joogay dhergaygii baabuur baa la nagu guray sida ariga sarkaanta geela lagu eego yaa garanaya sarkaantii dheerada geela lagu eegayay ilaahay baan ku dhaartay wiil iyo gabadh islaan uur leh umul looma eegayn in xoolo la ulaynayaad moodaysay waxaan aad ugu faraxsanahay inaynu maanta ka soo gudubnay marxaladda dowladihii ka horreeyay hadda tan imika talisa waan la soo shaqeeyay waxaan la soo shaqeeyay kow xasan jira qalin leh allah yarxamur raahimiin waxaan la soo shaqeeyay nin la oran jiray isaguna iid oo markaa joogay runtii wax badan baan ka ogahay kilalka shanaad sida uu ahaa waqtigaana iyo sida uu maanta yahayna faraq weyn baa u dhaxeeya markaa ninkii dameer leh wuu garanayaa isbeddelku meeshuu ka yimiday iyo siday wax u socdaan haddaba waxa weeye adduunyadu ma wada noqoto satisfy oo qof walba meeshiisa satisfy kuma noqon karo laguma gaarsiin kartaa ilaahay un baa wax raali gelin karaa waxa weeye yani waxa la qabtay in la eego iyo muhiima
wixii dhimani always way dhiman yihiin oo yacni haddaynu nahay Soomaali waxaynu always jecelnahay negative side-ka inaynu eegno oo aynaan inta badan positive side-ka eegin marka waxa weeye haddaba aan dib ugu noqdo ee kilalka shanaad wuxuu sameeyey horumar aad iyo aad u ballaaran intaa uu joogay cabdi maxamuud cumar intaa uu joogay wuxuu sameeyey horumar aad iyo aad u ballaaran waxaynu leenahay oo aynu haysanaa 40,000 booliis ah tababaran awooddaasina waa midda keliya ee ay maanta Soomaali meel kastoo joogtaba ay leedahay ku faanayso in thank you ninkaa la yiraahdo waa wax aad muhiim u ah cabasha way imanaysaa way jiraysaa bini aadamku raalli ma wada noqdo laakiin inta badani hadday raalli tahay wixii la qabtay intaa la raacaa fiican qofka bini aadamkaana waa lala doodi karaa waa la odhan karaa war waxaan maad qabanno waxaan maad qaban laakiin cidna laga yeeli maayo wixii la sameeyey baan burburinaynaa cidna laga yeeli maayo laakiin reality waxa weeye aynu wax wada qabsanno wixii dhiman ha laga wada hadlo ha la saxo sida saxda ah ee dariiqada saxda ah loo maro ninkii dood qabaa ha hor fadhiisto ciduu dooda ka qabo laakiin banaanada laga qaylqayliyaa wax ma qabato ninka doonaya inuu wax bedelo waa inuu gudaha wax ka bedelaa laakiin waxa uu bedelayaa waa inay tahay wax cad oo ay dadku uga garaabaan bulshadu ay arkayso inay wax la bedelayo ay tahay marka dhammaantii waa salaamantihiin محمود عبدي محمود I'm sorry مدحوينا عبدي محمود wax badan buu qabtay in la saboor gareeyo la barbar joogsadaana aad iyo aad bay muhiim u tahay laalana doodo oo la yiraahdo war waxa saa dhimane halkeed ku og tahay taas xaq loogu leeyahay ninkii doodayana banaanka gudaha ka dooday banaanka wax doodo ka socota ma jirto wax ka iman banaanka wax ka socon kara ma jiro nin waliba gurigiisu ka hadlaya laakiin ninka raga ee wax inuu bedelo doonaya ee dood inuu bedelo doonaya gudaha tago wuxuu bedelayana gudaha ha ka bedelo oo codkiisa gudaha ka dhiibto dhamaantiin aad baan idin salaamay laakiin wanaaga ha laga shaqeeyo that's all waxaan lahayaa waa maatantii dhamaantiin waxa hadda ku soo dhaweynaynaa feenka jaaliyada ahna hubinka ugu firfircoon khadra macalin السلام عليكم أمانتين وأنا وضع السلامي وأنا إذا كم هالنقيا شركة قيب صار نوقص قيب كشينا شرفت لهيد هدي أن الكهنورت وحن كسلامي يا مدحوينها عبد محمود عمر مضان عبد محمود عمر كان هالكن كسلامي يا مكهوري يحمني يسا لشقية وحن كل حجسين يا نيو بوليس ونادي وتشعل هاي وأي النبض بالعليان لما هلو نبض لما هلو without in la helo ciidan mooyee nabad lama heli karo maanta waxaan aaminsanahay qofka ka soo horjeeda nabadgelyada iyo horumarka ka socda kilalka shanaad waxaan aaminsanahay nin aan rabin in shacabka Soomaaliyeed ee kilalka shanaad inay horumar gaaraan nacibna agoonta oo u kaalmeynaya iyo hooyooyinka single mother-ka ah waxaan markhaati ka ahay oonan maanta anu cabdi uma hadlayo madaxweynahaygii weeyaan uma hadlayo wallaahi laakiin indhahaygu waxay qabteen oon soo arkay hooyooyin aan weligood lacag isku xidhan arkin oo guryahoodii intii lacagtii loogu geeyay ku soo shaqaysta kama dhicin kanadaan joogaa wax lacag siinaya waa inaan shaqaystaa haddaan cayr taga xataa inta i soo siiyaan waan u kala qaybinayaa ayagii baan biilashun baan ku kala bixinayaa wax ii soo hadhaya ma jirto laakiin cabdi wuxuu gaadhsiiyey cooshado inuu wada furo wuxuu gaadhsiiyey inuu yiraahdo ka shaqaysto ilaa iyo wajaale ilaa iyo maxaan ku raahday dirdhabo nabadgelya meel kasta lagu maraa marka anigu hadda waxaan horumarka haddaan idhaahdo maanta inaan horumarka caawa ka sheekeeyo ma dhammayn karo laakiin waxaan ogahay 2006kii mar aan tagay inaan soo dhaafi waayey Addis Ababa aabbahay baan u socday inaan soo eego waan soo dhaafi waayey
maxaa la ii sheegay oo aad igu yaabadnayd markaa madaxweynaha cabdi maxamed cumar madaxweyne uma ahayn cabdullaahi madaxweyne la dhaha madaxweyne waxaa la ii sheegay in la yidhi aabbaha haddaad rabtid inaad aragtid magaalada qabri daaruu ku nool yahay ambalaas baa lagaga soo qaadi jidka lama mari karo ma arrintaasa arrin dhacaysaa maanta miyay taagan tahay maanta markaan sababo ka tago qabri daaraan ka qadaynayaa kama dhicin marka horumarka anigu kama sheekayn karo waayo anigu waan soo arkay horumarka idinkana waad soo arteen in badanoo hadda ila fadhido way soo wada arkeen laakiin wax qabadka ee xisbigu qabtay madaxweynuhu qabtay maxaan ku rahaa shakhsiyaadkiisa new booliska qabtay anigu ma aan soo koobi karo waxaan halkan aan ka cambaaraynayaa dadka magafayaasha een markhaati ka ah anigu hoteelada ku lahaa jigjiga een hoteeladooda deganayn ee la siin jiro dowladdu xataa waxay ku caawin jirtay way is yaqaanaan dadka shakhsiyaadka hoteelada ku lahaa waxay ku caawin jirtay inay dhahaan xafladaha markaan dhigayno qandaraas loo siiyo cuntaday bixinayeen ayadoo extra lacagta ana loo soo shubo akoonka loogu soo shubo maantana macaarad waxay ku yihiin Minneapolis shakhsi baa tahay ma matashid qabiil dhan shakhsi adigoo ah baad qof xun oo macaarad ku ah oo intii wax loo taray waa nin maxaan ku rahay intii wax loo taray wixii loo taray ka been sheegay dadka qaarkood waa naqaanaa macaaradka ah waxaa la soo siiyey qandaraaskii faafan oo dhan baa la soo siiyey macaarad bay maanta Minneapolis ku yihiin war ma ilaahay laga baqo madaxweynahan afka lagu soo taagay inaad u duceysaan oo tiraadaan ilaahayow ka khayr badan si ilaahayow ha jiro mooye inaad tiraadaan maaha inaad ku macaaradaan anu waxaan cambaaraynayaa facebooka wiilasha yaryarka ah in anigu eedada u ahay ee facebooka jarmalka ka soo galaya been baad sheegteen magafayow baad tidin intaad lacag soo xadeen baadna u timaadeen jarmalka ana eeda idin been idin sheegi maayo waa is ogtidiin waan idin la socdaa waxaad tiina cabdi baydaan kan bee sheegaynin kilalka shanaad baydaan kan bee sheegaynin dadkaad isku diraysaan dadkii deegaanka deganaa ee walaalaha ahaa ee qabiil kasta la deegaanka waxa weeyaan dad khaas u ama deganaa deegaanka qoomiyado badan baa degan oo jecel xisbigooda inaad idinku dadka isku dirtaan haddaad facebook u soo istaagteen ma soconayso shakhsina waddan ma dumin karo madaxweynena ma ridi karo fiifa cabdi maxamed cumar aad baanu ku jecelahay aad baanu ku taageersanahay jaaliyada waxaan nahay Toronto waan ku taageersanahay jir oo joog waliga new bolis halkan aan ka salaamahay aad baa idin salaamay new bolis waxa weeyaan geeska Afrika madaxweynaha kaliya ay ku taamayaan guud geeska Afrika weeyaan cabdi maxamed cumar ma ahan madaxweyne bidhkaalaha dadkiisa xumaynaya waa madaxweyne caawinaya haweenka haddaanu haweenka Soomaaliyeed ee kilka shanaadnahay cabdi maxamed cumar baanu raacsanahay cabdi baanu taageersanahay wuxuu wataanu taageersanahay shicibkiisa xisbigiisa taageersanahay ya andila amisti bay ahaan jirtay hadda laakiin andila amisti way ka baxday amisti ay maraysaa andila amisti waxa weeyaan hoos waxa laga soo bilaabay andila amisti waa xabash laakiin hoos waxa laga soo bilaabay meel hoose oo dadka laga soo kicinayo hadda meeshii saraanu joognaa war waa maxay jaamacadda ugu weyneed Ethiopia ee ugu weyneed baa laga dhisay qabri daare 3,000 arday ku xaroonaysa hadda ma ilaahay ka baqdaan war horumarka naga hor istaagna been baad sheegaysaan oo been baad sheegteen bamba idin leedahay hadana bamba idin leedahay baalaha oo idin kala faynaa bamba idin leedahay baalaha idin kala faynaa wallahi weligay ma soo istaagin life laakiin maanta walaalkayba halka iga daawanaya life-kaas hadda toos buu walaalkay u fadhiyaa laakiin waxaan leeyahay oon u taaganahay cabdi maxamed cumar aniga waxna ima siin waxna uu ii qabtay idin dhimaayo ku qolaan ahayna idin dhimaayo laakiin waxaan indhahayo ku soo arkay een anigu wadanka ku soo arkay idin anu infastar baanahay ilaahay baa i gaarsiiyay inaan lacagtayda intaan qaado aan kilka shanaad geeyo oon ka dhisto guryo oon lacagtoodii Kanada ku cuno biilka aan Kanada ku cuno waa biilka la iga soo diray jigjiga ilaahay ma laga baqayaan ka helaya ragga ka soo horjeedana annaga u taagan cabdi maxamed cumar fiifa annaga ku garab taagan jabi maysid waliga ya allaha aad waxaan uga salaamayaa halkan wasiirada waxaan oona kala qaadaynin waxaan aad u salaamay dawladda xisbiga markasta waanu garab taaganahay markasta waanu u taaganahay dumarka Soomaaliyeed dumarka kilalka shanaad cabdi maxamed cumarow dhammaan way ku soo duceynayaan horumar iyo wanaag fiifa garaadada suldaanada
aad iyo aad baan u salaamayaa waan ka xumaa inaan ku bilaabi waa laakiin no mushkilad ma leh aad baan garaadada u salaamahayaa waana soo soconaa garaadyada aad baan u salaamayaa suldaanada aad baan u salaamayaa dhammaan beesha intay istaagtay fadhiisatay isla hadashay madaxweynaha hadalka wanaagsan u gudbisay jidwaaq aad baan uga salaamayaa halkan aad baan uga salaamayaa waxaana leeyahay si wanaag iyo nasabnimo aad samayseen sharaf baadna ka leedihiin xisbiga iyo dalkiina iyo dadkiina dadka dhuul qaatada ah ee u adeegaya inay nabadiidka u adeegaya ee raba inay alqadaad galiyaan nabadda ka jirta geeska Afrika ee kalalka shanaad ma dhacayso mana ogolin waxaan gudaha iyo gabagabadii baan yar noo dhow shirkii lagu taageerayo wasiiradii yimid Minneapolis sida ay dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia dadka ku nool asal ahaan iyo dadka soo jeedaba ay ku caanka yihiin oo ah in mar walba oo dhib dhaco ama wax yar yimaadaan inay wada tashadaan oo geedka hoosteeda la fadhiisto taasi waa waatu aan lahayn ta kale waxaan xaggan uga mahadcelinaynaa jaaliyadda Soomaalida Ethiopia timida halkan iyo xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo hogaaminayo Sayid Cabdi Maxamed Cumar iyo ciidamada ku yimiday kuma iskama imaan laakiin waxay ku yimaadeen ilmadii hooyooyinkeen markii ay waddanka ka jiray goodoonka aadka u badan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar walba iyo waxa weeyaan iyaga horumarka keenay inuu yimaado marka hadda waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee jaaliyadda Cabdiwahaab haba u kala badnaadaan dadku kana maarmi mayso inaan xuso dadka dadaalka hormuudka ka ahaa anigoo ku ixtiraamaya ku sharfaya haweenka gaar ahaan oo waqtigooga geliyey habeen iyo dhalaarna u soo joogay dadaalka faraha badan ee halkaa ay maanta joogto soo gaadhayna zero baa ka soo bilaa waad kala garan kartaan markay wax bilow yihiin iyo marka ay sanad gaadho waad kala garan kartaan dadaalka faraha badan ee soo galay waxaanu soo galay dadka iyo dalka waxaanu soo galay dadku in ay halka ay joogaan uga howlgalaan kartidooda maskaxdooda kula taageeraan deegaankooda waxtarna ay muxuu ahaa u geystaan haddii ilaahay ma wixii kolba awoodooda deegaankoogii iyadoo waqtigu adag yahayba in la is xasuusto imika run ahaantii dadku inay is xasuustaan oo ay deegaankoogii iyo dadkoogiiba xasuustaan xilligan aad bay u adag tahay sidaa ay tahay waxaanu barnay oo aanu dhammaanba bulshada ugu baaqnay inay qayb ka noqdaan jaaliyadda inay dadaalada la wado meel uga soo wada jeestaan yar iyo weynba inay astaan qaran tahay meelaan joognaba aan madaxa ku hayno aan huwanahay mas-uuliyaddeedana haysanno waxaa ii sharafa in aan maanta aan halka aan soo gaadhsiinay ay mid aan muxuu ahaa sidii la sheegay cadceedda aan gacan lagu qarin oo kale ay tahay waxaan baaq weliba dadaalku halkiisii dee waa fari kama qodno waxaan baaq u dirayaa dhammaanba bulshadu inay ka wada qayb qaadato dadaalada horumarka lagu doonayo iyo taageerada deegaankeenii guud ahaanna gaar ahaanna magaaladeennan Toronto inaynu meel uga soo wada jeesanno innagoo walaalo ah gacmo haysaysanna gacmo wada jir bay wax ku gooyaan far kalihii fool ma dhaqdo biyana gacmahaagaa looga dhargaa inteenna halkaa joogtaa waxaynu naa'ib ama daaci ka wada nahay inaynu dadaalka mustaqbalkeenna carruurteenna in aynu maanta ka shaqayno berrito wixii aynu ku faani lahayn inaan maanta ka shaqayno weeye maanta inaan ka shaqayno weeye waxaan berri ku faani lahayn dalkeennii waajib buu inagu leeyahy dambarkiisiina waynu soo cabnay xaqna waxaa laynoogu leeyahy in aynu garab istaagno waqtigeennana siino nolosheennana wax ka siino dhammaantiinba aad iyo aad baan idiin salaamayaa waqtigoo yar awgeed
sidaa iyo wada shaqayn wanaagsan barnaamijkeennuna caawa saas ku soo xidhan yahay